mii baan ku dhashay mii baan ku barbaaray mii baana laygu guday oo markii lay gudayay hooyaday dee hablihii fircooniga soo maray bay ahayd aniguna waxay tiri hooyaday dee inantii mana sii dayn karo mana fircoonigiina anaa og dhibaatadan ka soo maray oo dee caruur baan ku dhalay marka de kolley hooyaday aniga sunni bay iga dhigtay ma fahanteen sunniguna wuxuu sidaa fircooniga waxba kama sokeeyo run ahaantii sidaan aaminsanahay fircoonigan laguu sheegayaa waa qofkii waa la jarayaa waa la tolayaa sunnigana sidoo kale waa la jarayaa waa la tolayaa ma fahanteen ama qodobku ha yaraado ama ha weynaado oo jiidis iyo qaadis waa isla gurigeyn baa la yidhaahdaa soo maaha marka aniga intii dee aan soo maray waxaan aaminsanahay inay qalad aada u weynahayd ma fahanteen waayo aqoontan maanta leeyahay ama caqliga maanta igu jira hadduu dee markaan yaraa igu jiri lahaa maan yeelan waxaa laygu sameeyo hooyaday waxay igu tiraahday waan ogahay inuu khalad yahay haddana wuxuu ku yahay dee difaac inan la iska sii daayo waa qalad bay igu tiri anigu haddaan iska hadlo ambaan ka hadlo waxaan la odhanaya gudniinka hablaha anigu kaga hadlaya dhanka caafimaadka oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka amba halweynada caafimaadka ka mid ah waxaan leeyahay totally waxa la yidhaahdo gudniinka hablaha in la joojiyo ayaa fiican waayo marka imika sheekhu siduu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay in la yidhi taabsiiya oo sunnihii uu yahay in la taabsiinayo inantii laakiin imika sida loogu dhaqmayo dalkeena Soomaaliland ay isku mid yihiin sunnihii iyo qodobka isku mid yihiin waxa la yiraahdo inantii inuu sharaf yeelayo gudniinkuna ma jiro inuu sharafteeda Ilaahay baa saaray karaamo Ilaahay baa saaray diinta inanta karaamaysan markii hore inantu karaamaysan tahayba wax karaamo uu soo kordhinayaana ma jirto wax safety uu soo kordhinayaana ma jirto gabadhii magaalada hadii la helo imka boqolkii qof toban baa maxay wax fircooniya runta markaan kuu sheego inta kaleba waa sunni waa maxay sunni ma garanaysaa waan wadnay waan wareegnaa dhama tirsato anagu baa wareegnaa waa dhibna maaha waa kala dhib badan tahay annaga annaga anagu dhib badan tahay dawaqaad badan tahay inanta fircoonigi macaan ma garan maxaan ku dhahaa sunnihina waa isaga danaxsaar oo iska caadi haddaba waxa weeyaan dee amba meel la saaro walaalayaal waan iska badayno ka hadnay amba dee hana xiijinin aan iska shaqaysanay dee intaas weeyaan xagala sheegayna dabadheer soo sheegnaa waraabaa reer duga u soo galo markaasuu yidhi uu maqlay inankii hooyadii kule waraabe ku cun odaygii ole waraabe ku cun waraabii baa yidhi inanka hooyadii waxay waraabe ku cun aabihiina wuxuu leeyahay waraabe ku cun anna waa doonaya mase gaadhayo war waxaan haddii diintii aanay ogolayn oo aan dhakhtarkii ogolayn caafimaadkii ogolayn oo bulshadii ogolayn bal waxaan idin su-aal wuxuu soo dabargoy waayey hawshan aa leedihiin dhibbay keenaysaa miyigii way ku badanta waa haysataa waxaad arkaysaa waxaan ka hor imayaan dhaweyd bir dhaweyd aan miyiga maray gabadh wadda 20 neef aadhiya hawlaheeda kalena u dhaliya lacageeda iyo alaabadeeda kale waxaa dee waxay ka soo shaqaysay miyi ama ha wanaagsan la xumaade ma garad anigu waxaan leeyahay weli wuu haystaa dhulka miyigii ah oo aad iyo aad buu badan yahay hoos ugu dhaadhici maayo anigu odhan maayo in la tulay iyo farsamooyinka dumarku dee gaadhayay laakiin hadduu u daran yahay baan leeyahay war caafimaadka oo diinta u daran yahay muxuu la saafkoy waay maamooyinkan si gaar ah oon leeyahay gabdhihiina yaryar ilaahay horta haydin asturo markaa ka daayo oo ka joojiyo dhibaatadan maxaa heeday ilaa maxaa heeday gaaraysa markuu qofkii daba soconaysa ilaa intuu ka godgalayo sidoo kale gabdhahan caadiga ee sunnaha gabadha fircooniga waxay maanta kaga duwan tahay qofkii maxaa heeday bishii hal mar ayuu maxaa heeday la kulmaa caadada marka gabadha maxaa heeday fircoonigi waxay ka sii warwaraysaa bishaas halka wiig ay ku leedahay gabadha kale halkii ay arkaysaa imika qurbaha intaas oo milyan oo Soomaali baa degan ma garatay oo hooyinkooda soo wada mareen haddana caruurtoodii waa suuq wada maraya waxba celinaya waxba sidana wala wax marka waxa leedahay halkaad ka timid kama jiro ma ka jirto dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale websayte-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed